jaamacadda Camud qaybta waxbarashada heerka labaad ee masterta gaar ahaan faraceeda magaalada Hargeysa waxaa maanta ka bilowday dhageysiga difaaca mawduucyo ay ardaydu ku sameysay cilmi baaris taasoo qayb ka noqonaysa qalin jabintooda sanad waxbarasheedka dhamaadka ah ee 2022-2023 furitaanka madashan difaaca cilmi baarista ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda sare ee jaamacadda Camud mas'uuliyiinta iyo howlwadeenada dugsiga waxbarashada heerka labaad ee masterta gaar ahaan faraciisa magaalada Hargeysa macallimiin arday iyo daneeyayaal kale waxaana ugu horeyntii howlwadeenada faraca Hargeysa ee qaybtan waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda Camud oo hadalka iska daba qaatay ay tilmaameen ujeedada madashan qaybaha iyo tirada ardayda ah ee maanta u diyaarka ah in difaacaan cilmi baaristaas ay sameeyeen sharaf bay noo tahay in muddadii labada sano ee ayna soo dhaafay hawshii thesis-keed ku jirteen inaynu maanta halkan aynu u fadhino oo aynu ku iba furanno inaad difaacataan buuggii aad soo wadeen muddada labada sano ah waxaan leenahay awguuliyo hambaliyo qaybta Hargeysa markaad eegto kuliyadaha imaka runtii aynu maanta ama waqtigan imaka weegan aynu ku jirno iyo weegaga inoo soo socdaba difaacan doona runtii iskuulku waa ilaa almost 8 kulli department oo laakiin facultiesku iyagu ku sii kala jira markaad eegto faculty MBA ga oo runtii tirada ugu badan ee difaacan doonta buugaagta waxay ka kooban yihiin 3 department saddexda department ay ka kooban yihiin waa departmentka project planning and managementka departmentka finance and accountingka iyo departmentka M&E ga ama monitoring and evaluationka ardaydaasi MBA ga imaka inoo difaacan doonta buugaagta ilaa 34 weeyaan arday waxa ku xiga classka finance wuxuu ka kooban yahay arday 17 labada arday oo runtii waxa jira iyaguna sanadadii hore ka haray laakiin hadda sanadka raacaya marka ardayda total waxay isku noqonayaan 19 arday marka M&E ga runtii oo monitoring and evaluationka waa iyaguna waa 7 arday markaad u timaado classka public health-ka oo runtii ama faculty of public health waxay runtii sanadkan Hargeysa campus ka difaacanaya waa epidemiology oo nutrition iyo health promotion bay noqdaan laakiinse sanadka epidemiology baa difaacanaya ardaydaasina almost 20 bay ku dhow yihiin marka iyagana runtii waa runtii waa bogaadinaya waa runtii idin leeyahay hambaliyo arday waxa jirta iyaduna research and data analysis departmentka research and data analysis ka iyaguna almost marka lagu dago arday hore oo hadhay waa 17 arday markaad eegto waxa jira department la yiraahdo applied statistics oo runtii isaga laftiisuna ardayda maanta runtii sanadkan qalin jabin doonta ah marka iyaguna waa 7 arday waxa ugu dambeeyo oo runtii jira department la yiraahdo construction management wana iyaguna waa 5 arday ardaydan rajaynayna markaasi sanadkan inay buugaagta difaacato oo runtii ayna noqdaan class of 2023 ga waa runtii almost 109 ama 110 baan oran karnaa sidoo kale ayaa qaar ka mid ah macallimiinta ajnabiga ah ee qaybtan wax ka dhigo iyaguna halkaas ardayda kula dardaarmay ay tilmaameen My colleagues, our dear students, we are very happy today to see you here, and we are happy because this is a day we have been looking forward to for almost 2 years now. Coming to what we shall do today, this examination, we shall give you a very good atmosphere in which we shall examine you. It will be very relaxed and very cordial, so that we do not expect any one of you to come to the defense hall with a lot of fear and anxiety. I believe all of you, for those who will be defending their works, know a lot about what you've already done. So it's just a question of coming to justify the originality of the same work that you have done, that it's you who own this work, not any other person, and that's why you are able to stand and defend the same work. maaha intan oo kaliya balse qaar ka mid ah ardayda difaacanaysa cilmi baaristooda ayaa iyaguna halkaas ka hadlay waxaana ay cabireen safar dheer kadib dareenkoodu maanta sida uu yahay wallahi aad baan ugu faraxsanayn maanta stage-ka soo istaago oo soo gaadho muddada labada sanadooda aan ku soo dhameeyo wax weyn bay ilaahay maanta soo galiyay inaan aan halkan soo gaadhayo laakiin haddana waqtiga kooban haddana maanta waa la soo gaadhay si gaar waxaan ugu mahadcelinayaa macallimiinteedii Dr. Moringo, Dr. Charles iyo Ambrose
maamulka jaamacadana aad baan ugu mahad celinayaa waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa Nuurudiin iyo dhammaan ardaydii klaaskayga oo maalintan bilaabaynay ku go'aan gaadhnay maadaama number kooban hayn inaan numberkayga kooban aanu kala hadhin aanu dhamaysano alxamdulillah maanta numberkayga guud ahaan wada dhamaysanayna way tageynaa runtii oo 2 sano dhamaaday waxaan jecelahay qof kasta inaga mid ah oo wiil iyo gabadhba inta halkan fadhida iyo inta codkii u gaadhiyaba inay noqono ambassadors ay matalo jaamacadda Amuud oo wax weeye taabkiina gelisi kuma talo oo wax weeye aqoonteena bartay kuma talo oo akhlaaqdeena bartay kuma talo ambassadors ay noqono oo in qaadno message jaamacadeena ka qaadno message wanaagsan oo wax weeye ummadda kale iyo asxaabta kale ee generation-ka dibadda doonaba ay la wadaagno in dhahno halkaasi waa meel wanaagsan oo la maxdiyay sidaasi oo kale ayaa hormuudka qaybta waxbarashada heerka labaad ee mastarta ee jaamacadda Amuud Dr. Cabdi Fataax Xaaji Daawud Warsame oo isaguna hadalka qaatay uu si ballaaran u iftiimiyay qodobo dhowr ah oo jaamacadda Amuud u qorshaysan kuwaas oo gabi ahaanba looga gol leeyahay in kor loogu qaado tayada dhinaca cilmi baarista waxaana uu yidhi researchku isagu capacity fiican buu lahaa saan horeba u sheegay kaliya waxaan u baahnay inuu researchka marka laga in daabacadeedii la sameeyo iyadana iminka insha Allah sanadkan waxaan rajaynaynaa inaan talaabada hore u qaadno waxaan ku dadaalaynaa tiro fiican inaan daabano at least haddaan xitaa 20 ka mid ah la daabaco wax baynu horeyn u qaadnay marka si aynu taa u sameeyno sanadkan waxaan muxuu ahaa aan rabaa maanta in la sheergareeyo 2 arrimood oo ka qayb qaadanaya muxuu ahaa sheergareynta ee daabacadaas mid waa midoo journalkii jaamacaddu ay lahayd oo horeba u shaqayn jiray waxa insha Allah la dib loo soo sii deyn doona waa qalin jabintiina dadka ugu horeeyeen rajaynayna in waxooga muxuu ah lagu daabacana waad ka mid noqon doontaan sanadkii waxaan rabnaa in 2 jeer la daabaco bal marka horeeyo capacity-ga inaan ku dhaqaaqno xagga dambe waxay noqon doontaa markii capacity-ga kor u sii kacdo laga yaabaa inaynu ka dhigno sanadkii 4 jeer sanadkii 6 jeer sanadkii 12 jeer marka dambe tagno talabaade aan muxuu ahaa researchkiina aan ku soo bandhigi doonaana waxay noqon doontaa page-ka jaamacadda waxaan ku shaacinay conference inaan qabanayno conference-kaas oo noqon doona the first conference oo noociisan ah oo jaamacadda muxuu ahaa laga qabtay marka insha Allah ka laftiisu wuxuu noqon doonaa ku aad idinku ay noqoto qolooyinka participate gareynaya qaar inaga mid ah waxaan u qaadan doonaa inay volunteer gareeyaan oo ku train garoobaan iyaga laftooda bartaan sida loo qabto badankiinuna muxuu ahaa article aad samayseen baad halkaa insha Allah aad ku soo jeedin doontaan marka taana waxaan rabnaa insha Allah in iyadana hore looga dhaqaaqo oo sanadka dambe markay noqoto at least xitaa qolada iyagu masterta research-ka dhiganayay waxaan ku dadaalaynaa inaan dhiraano oo aan sameeyno in shardi looga dhigo ardaygu inuuna qalin jabin karin ilaa uu article daabaco at least kuwan muxuu ahaa iyagu masterta research-ka qaadanay sida wax laga yaabaa sanadka ku sii xiga in dhammaantiin lagu soo wada rogo waa wixii waa wax la sameyn karo waxaan rabnaa un horta wixii bal in step step loo dhaafo sanadkan aan ku soo gunaanada xagga research-ka waxa aan iyada lafteeda soo kordhinay oo aan sameynay anagoo qolada research-ku ku tijaabinayna in sanadka koobaadba ay research sameyn karaan alxamdulillah tii waan ku guuleysanay groupkii 2 qof baa ka jooga research bay sameeyeen group researcher iyagoo first year oo imika insha Allah aan rajaynayna inay by end of this semester ay article ka qoraan oo ay diraan marka taana sanadka dambe waxay noqon doontaa iyadna arrin research-ku aan ku koobnaana lagu soo wada rogo ardayda first year-radoo dhan inay group research ay sameeyaan insha Allah marka waxyaabo fara badan ayaan isleenahay aan sameeyno taasina kuma timaado muxuu ahaa maamul kaliya kuma timaado maamul iyo macallimiin oo kaliya waxay ku timaadaa dhammaanteen oo arrinta muxuu ahaa ka wada hawlgasha alxamdulillah ugu dambeyn ayaa agaasimaha waxbarashada ee jaamacadda Amuud Professor Mukhtaar Cabdi Cumar oo isagu halkaasi ka hadlay oo hambalyo iyo gubaabo isku ladan la wadaagay ardayda waxaana hadalka ku soo afmeeray aad iyo aad baan idin hambalyeynaya si guud jaamacadda oo farxad weyn bay noo tahay inaan aragno ardayda aad ka u tirada badan ee 230 arday ku dhow ee kambasida kala duwan sanadkan ka dhamaysanaysa waxbarashada post graduate-ka marka teamkiinaasi aan runtii si gaar ah igu suntantiin oo yadna farxad gaar ah ay tahay inaan maanta Ilaahay nagu sameeyaan aan joogno dhameystirkiina waxaan ku soo gabagabaynayaa waqti dheer naga dhacay in aad uga faa'iideysataan fursadda uu doctorkii noo sheegay
journalkii jaamacadda oo la daabacayo conference-ka jaamacadda ay soo qaban qaabinayso gaar ahaan iskuulka postgraduate-ku waxaasoo dhan waa platforms ay jaamacaddu diyaarisay si ay ardaydu fursad ugu helaan meel wixii ay qabteen ee ay qoreen ay ku daabici karaan ay ku soo bandhigi karaan kuwa markaad ku tababarato dee journalistkii caalamigii iyo conference-yadii caalamigii inaad ka qayb gali karto ayaad marka dambe aad u diyaarsanaanaysaa markaa shaqadu halkan kuma istaagayso waddankeenuna de wuxuu u baahan yahay horumarkiisa inaynu wax badan aynu ku tarno meelaha aynu ka horumarinana waxaa ka mid a markaa aqoontii in la horumariyo aqoontana waxaa lagu horumarinaya waa cilmi baadhista waxyaabo hore oo aan dadku hore u aqoon in la ogaado aqoon cusub in la soo saaro theories and principles cusub in la discover gareeyo waxaasoo dhan through research ayay runtii ku imanayaan marka dadaalka dee halkaa kasii wada hawshan haynii noqoto barbilowe yaanay bardhamaan noqon haddii alla idmo